ururka Alpha Trust ayaa booyada biyaha gaarsiiyay deegaanada ay ka jiraan abaaruhu kuwaasi oo hoos yimaada gobolka Togdheer. Booyadaha biyaha ayaa wax ka faa'iideystay qoysas tan yara isla markaasina ah dadka ay abaaruhu ay saameeyeen. Deeqdan biyaha ayaa waxa loo soo wakiishay DG Subeer oo kamid ah xubnaha ururka Alpha Trust ee dalkaasi Sweden. qaar kamid ah dadkii ay biyaha la soo gaarsiiyay oo halkaasi ka hadlay ayaa waxay ka warbixiyeen deeqda biyaha ee la soo gaarsiiyay. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلهي بمهد سبحانه وتعالى وحنو مهد علينا قربجوكتا DG Subeer iyo Alpha Trust oo xilli loo baahnaa oo waxa weeyaan qaaraan biyood deegaanka ay ka soo jeedaan gaarsiiyay iyo deegaamo fara badan oo kale waxaan uga mahad celinayaa inay keenaan xilligii loogu baahida badnaa oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala meesha ka soo saaray wax khayr qaba Allah ugu bedelo. waxaan u mahad celinaynaa qurbajoogta reer Ingiriis Alpha Trust iyo qurbajoogta kale ayaguna isoo qaadamay. Alpha Trust waxay bixisay 250 foosto oo biyo halka qolada kalena ay bixiyeen 650 booyadood foosto marka 900 oo foosto biyo gaarayaan saaka qaybinay cid kasta oo imika ka qayb qaadatay oo mahad celinaa. Ilaahay ugu mahadnaqaynaa dadka biyaha noo keenay dal iyo dibad kuwa dalka jooga iyo kuwa dibadda joogta kuwa qurbada jooga kuwa Ilaahay ugu soo raray waan u mahadnaqaynaynaa. abaartaana haysa iyo Ilaahay baan ka baryaynaa in Ilaahay roobna noo keeno iyagana waan u mahadnaqaynaa waan u mahadcelinaynaa. xoolii oo naga xumaaday xoolii oo naga iibsan waayay xoolii waxa xoolo jab oo nagu dhacday abaar oo nagu dhacday raashin mikii oo nagu qaaliyoobay jooga iyo kuwa halkan jooga meel kasta ha joogan islaamka Ilaahay baa intaan u duceynaan wixii waxna tarana aad ugu sii duceyn habeen iyo maalinba ifiya aakhirada Allah barakay aakhirana Ilaahay jannadii ha siiyo ifkana janna firdawsata aakhira Ilaahay ifkana Ilaahay ha barakeeyo Ilaahay ha barakeeyo waqti walbana waa u soo duceynaynaa alxamdulillaah rabbil caalamiin rahmaanir rahiim anigoo ahayd maanka tuulada xurfada jirjira marka hore Ilaahay baa mahad iska leh maanta ifkeenu joognaayeen birina aakhiraynu joognaa aakhiriya iftiinkaba dadka abaaruhu saameeyeen ee masaakiinta ah u soo kaalmeeyey Ilaahay waxaanu ka barayaynaa aakhiro iyo iftiinkaba inay liibaanaan Ilaahay ugu wafeeyo qofka dadka haddii Ilaahay ka dhigeena soo xusuustay ay soo xilqaamay dadkooda liitay abaarsaday soo caawiyay Ilaahay waxaan uga baryaynaa Ilaahay inuu dambigoodii dambigii waalidka oo dhaafo meeshii ay ka soo saareenna Ilaahay wax khayr qaba u dhigo uga buuxiyo. dhanka kale DG Subeer oo kamid ah xubnaha ururka Alpha Trust ee dalkaasi Sweden ayaa halkaasi ka hadlay isagoona ka warbixiyay muhiimadda ay leedahay in loo gurmado dadka ay abaaruhu ay saameeyeen. Ilaahay baa mahad iska leh waxaan aad iyo aad aan mahad celinayaa Alpha Trust walaalahay gudoomiye Dahar Ali Kulmiyo Maxamed iyo haweenka reer qurbajoogta maanta baa mahadsantidiin booyadii waa kuwaas adeerayaalna way fadhiyaan iyo suldaankiina wuu la joogaa oo aad iyo aad inii mahad celinayaa dhammaantiin. ma aha markii ugu horeysay ee ururka Alpha Trust ay gurmad soo gaarsiiyaan dadka ku nool deegaanada gobolka Togdheer. mas'uuliyiinta ururka Alpha Trust ayaa sheegay inay mar walba garab taagan yihiin isla markaasina ay ka go'an tahay gurmadka dadka dhibaataysan.